الرحمن الرحيم maanta waxaynu joognaa dhagax dhigii mashruuca farxadda nasashada bulshada mashruucani waa mashruucii saddexaad oo kamid ah afar mashruuc oo goobta laga hirgelinayo mashruuca koowaad waxa uu ahaa madxafka la dhisayo ama hooyga taariikhda Soomaaliland oo imika dhamaad ku dhow dabaqii lixaad maraya oo ay hadhayn qaybtii u dambeysay finishingkii mashruuca labaad wuxuu ahaa taalada diyaaradda oo iyada laftigeedu qaybtii koowaad dhamaatay ee imika iyada lafteedu finishingkii u harsan yahay mashruuca saddexaad waa kan oo farxadda ay ku nasanayso bulshada halkan maadaama uu museumkii diyaaradii dhulkii la daawanayay faras magaaliye yahay meel dadku ku nasto iskaga shaaheeyo ayaa laga dhigayaa mashruuca afraad oo inoogu xigi doono kulay aynu dhawaan isna furi doono waa meel baabuurta la dhigto oo ila dadka halkan yimaada meel ay baabuurta dhigtaan bay rabaan ku maaragtay inta aanay halkan soo gaarin kaasuu inoo dambeeya mashruucan runtii waa mashruuc aan sileeyay magaalada maadaama spaces oo dham yar yihiin meelaha lagu nasto dham yar yihiin meelaha bulshada isugu timaado dham yar yihiin waa kii u horeeyay meel dadku ku nasto ay tahay marka runtii barasaabka iyo meeyarka waxaan ku soo dhaweynaynaa mashruucan oo aan imika muddo soo qorsheynaynay oo imika midhadhalkiisa bilaabmay waad aragtaan insha Allah waxaan rajaynaynaa afarta mashruuc bayna dhamaadaan inta sanadkan aan ku jirno oo furitaankoodii iyo manaafacaadsigoodiiba uu runtii soo gaadho qodobka labaad aan ku daray waxa weeyaan anigu madaxtooy ahaan afarta mashruuc iyana maal gelinay waxaana naga ahayd in dawladda hoose wada shaqayn fiican yeelano iyo wadada balaarinteedu kulli taasna way soo socotaa laakiin wada shaqayn fiican in dawladda hoose la yeelano wixii markaa gaabisay jirana aanu ka taageerno shaqadan ugu dambeynta waa shaqada dawladda hoose leedahay oo magaaladii caasimadii ay ku leedahay wixii kale la nooga baahdana diyaar baan u nahay meeyarka cusub inaan la gacan qabano oo la yaani wixii deean contribution in ka geysan karno laakiin waxaan rajaynayaa goobtaasi markay sanadkan dhamaadkiisa dhamaato inay noqoto halka magaalo kasta waxay leedahay meel icon oo la iskugu yimaado oo bilicdeeda oo lagu soo tilmaamsado inay noqon doonto meesha la isku soo tilmaamsado kharashka iyo dhaqaalaha ku baxaya madaxweynaha qaranka ayaa si gooni u ballan qaaday bilowgiiba isagaana hindisaha lahaa gaar ahaan waliba marka la eego hooyga taariikhda ama museumka halkan u naqaano inta dambana isaga markii dambe yidhi waraynu raacino meeshoo dhan hasla wada qurux badnaatee marka runtii waxay halkan noqon doontaa baan isleeyahay in the long run baanankiiba ku wada yaala dalka oo dhan kuwii private-ka ahaa kuwii public-ka ahaa inay noqoto square-ka magaalada bilicdeeda iyo quruxdeeda soo saara intaasna anigu maanta taariikhdeeda halkaa idinka sheegi karaa